afkaygu ammaantaada u fududaaye afkayguna ammaantaada gacalooy u fududaaye السلام عليكم أصحابتي ذا قيمة هي قايا لو ملو باجوكتين سودا وادا ما أنت وحي حالته مريسا شبده شنكرون شرفتي دي قلبا لغوري دي وحن هذا دقي سنة يوحن إذين صوضو وحي كلا تاي كاف يكلا ديري شنكرون شمع عيدي شلن بالا سيست وحن كان لنا وحكا لماهن waxaan ka hadlayno waa waxaad soo aragtay waa waxaan aniga soo arkay oo aan baraha bulshada saacado ka hor aan ku soo aragnay waana sida loo galay hablo yaryar oo Soomaaliya waa gabdho yaryar oo 15 jir ah waa 14 jir 15 jir 16 jir waana shuma aabba Soomaaliyeed oo dhididkiisa u soo horay waana shuma hooyo Soomaaliyeed ay dabka iyo jikada iyo kuleelkeeda ay u diiday ayadu ay gashay si gabadh ay u soo saarto qurux iyo haybad leh sida uu fannaankeena dalxa uu leeyahay wuxuu u la misaalay quruxda iyo qaayaha ay leedahay gabadha Soomaaliyeed eriyadiisa eriya aan soo koobi karo ama aan qiyaasi karo maahan laakiin waa nasiib daro in sharaftii gabadhii Soomaaliyeed uu ku dheelay anug xun oo dhuuntiisa ma taqaanaa wuxuu cuno raadinayo ama doonayo inuu ku soo caanbaxo waxaan in badan aragnay gabdho Soomaaliyeed oo sharaftooda lagu dheelay waan qaadanay sababtoo siyaabo kala duwan waxaana waa gabar weyn waa islaam weyn waa garoob nolol soo aragtay waxaas lamida laakiin saddexdii gabdhood aan aragnay ma ahan saddex la qaadan karo ma ahan saddexdii maahan gabdho intaas laag in sumcadoodii oo cunug xun uu ku raadsado magac iyo maamuus yaa sameeyay adiga i daawanaya lamida ayaa sameeyay sababtoo ah shalay ayuu kuu soo bandhigay wax intaa ka xun laagaa saartay sheera ugu dartay commentia ugu dartay waxaa tahay nin wanaagsanaa tahay kor baad u qaaday madiidee marka 15 jir inuu maanta soo dhigo oo yiraahdo adi iyo wiil kale asna 15 jir kala isu shumiya ma asisiya inuu yiraahdo bal wax yar ila dhageysta sida horta ay u furfuranayaan aniga marnaba horta igama suurtoobayso inaan wajigeeda ama wajiyadooda ay tuso sababtoo ah malihi dareenkaas waxaan ahay aabba Soomaaliyeed oo gabar dhalay waxaan dhashay hooyo Soomaaliyeed waxaan la dhalatay gabar Soomaaliyeed waxaana marwo wanaagsan iyo gabar Soomaaliyeed marka absolutely mar laba ay sugin inaan ku soo bandhigo laakiin bal codkooda iyo ila dhageysta waxa uu leeyahay iyo qaabka u daafurayo hadii ay damiir kugu dambayso ku celina alaf mar labaad ku noqona wala laaba ku celina alaf mar labaad qofka soo qaato hadii hebel law isuna law gabadh isuna wili gabar hadii isuna waa basiil rabaso hay no blow absolutely ما هن مد لو قاعد كرو ما هن مد متقانا إن إندها كقرص كرنو ما هن مد أما تقانا أن تاجيري كرنو ما هن أنا وحى إجلس ياب كبدن با يبدأ الصوماليات اللي يرويل شمي الكاميرا كوسو هرجيدو أو إذا قص ليس أو دولا عدينا يسو شمي نيسو ورشن كرر ميسنة هن مدين تجد كإيجار ماتو إندها أنت يسوي سافك يقد بوله جرتي شنكرر مهن ميا مدي لبرك مركارتو لوق كوردي جرتو لوق كلا كوردي جرتي شنكرر مهن ميا مدي مركا عفيرن صعد كغلدم جري شنكرر مهن ميا مدي درجيك مركا عفيرن أذي كذا الله صدره مركا عفيرن مودي جرتي إن دركا كودا كينيا حشوت أوجد مودي جرتو مهن ميا شنكرر محاسن كوجلي شنكرر سن محاكو كان شنكرر محاقصبي نعسحن إنه كوصو عم بحو شنكرر محا صببي إن
shilin uu kugu bedesho naca Soomaaliyeed Allah xumidaa alla sumcadaadii dhimataya bal qiyaas waxaa tahay waxaad soo baxaya bal qiyaas waxaad rabtaa mustaqbal bal qiyaas sidoo noqon doona ninka mataqaanaa maanta inuu ku guursado ama dabackaas u galayo ana ku sheego qalaas markii aad videogaas duubtay ee public la soo dhigay ayay sharafo dhimatay kii wanaagsanaa ee ixtiraamka iyo quruxda badnaa ee mustaqbalka wanaagsan sameelaha markaas ayuu guuray laba geed in ka badan guuray laakiin yaa ku soo dhawaada mataqaanaa nacas doqon danlaawe iyo mid waqti yar oo kooban noloshaada kale ayaa ku soo aaday waana kaaskan ku haminayo waana kaaskan hadhoodiina ku bahdili doono waana kaaskan mustaqbalkaaga soo gabagabay doono oo mugdi iyo duruuf intaba geed doono shankaroon saan lagama filan bal haddii adigu aad noloshaadii ama aad sharaftaadii aad gubtay ma dareemi weyso in walaal Soomaaliyeed oo kula dhashay ma dareemi weyso boqolow Soomaaliyeed oo inta dhalinyarada ficiisa dhex tago kaftamo wax ku karbaasho in ma dareemi weyso inuu kula dhashay bal muxuu sameynaa kii kula dhashay muxuu sameynaa aabihii ku dhalay haddii uu nool yahay muxuu sameynaa goobaha lagu gartamay meelaha lagu gooyo garta markuu u fadhiyo muxuu leeyahay garma loo dhiibana aabaha may marnaba loo dhiiban maayo oo waxaa la leeyahay waa odaygii dhalay gabadhii heblaayo ee social media taale alla maxaa shankaroonay sidaa kuu galay alla shankaroonay maxaa sharaftaadii dishay alla shankaroonay maxaa shumca damay hal mar noqotay alla shankaroonay saas ma kuu filan shankaroonay waxaad ahayd mid golo looga heeso shankaroonay waxaad ahayd mid tali iyo tusaale ah bal fiiri adiga halkaas sheegaysaa hablaha Soomaaliyeed qurbahan nala joogo halkan wadankan aan joogo marka ay dadka carabtu nala sheekaystaan waxay leeyihiin hablaha Soomaaliyeed waa kuwa asturnaanta iyo diintu ay ka muuqato hablaha carabtu markay inta imaadaan qaarkood xijaabkay dhigaan qaarkood qamaar xun oo ilaa iyo dhuunta xataa gaareen ay xirtaan laakiin hablaha Soomaaliyeed waxaad arkaysaa inta ku dhashay halka ku dhashay oo weligood Soomaaliya arkinin balse haysta xijaabkoodii iyo diintoodii iyo dhaqankoodii iyo akhlaaqiyadkoodii haysto hablaha Soomaaliyeed waxaa la isweydiiyay sababtay ugu dhageen xijaabka sababtay ugu dhageen asturnaanta waxay ku dhasheen dhaqan islaam waxay ku dhasheen dhaqan wanaagsan oo la is asturayo anigu markuu intaas ku dhasho wuu soconaya laakiin hadda maxaa sababay inaad adiga oo shankaroonay oo ku dhalatay dhulkaagii hooyo oo ilbaxnimada iyo diinta ay taale ku dhalatay in maanta lagu yiraahdo ishaag mataqaanaa wiil ajnabi ka ah shumi ee haddana aad ii dhowla cadays yalla ya Allah marka aad dhowla cadaynayso wallahi adi waxaad weysataa soo jiidashaad weysataan laakiin aniga qalbiga qacidahay ma garatay waa gabdho Soomaaliyeed oo adiga kula mid ah baa ila dhashay waana dhalay waana u naxayaa magaca Soomaali ahaan ayaa haddana kuugu naxay markaasaa kii waxa iigu yaabka badan kan ugu weyn muxuu ka qoomameena ko wuxuu leeyahay mataqaanaa waan ku xumahay maanta waxaa rabo leeyahay 10 mac in la isiiyo aan rabay marka koowaad uu weyna saa markii dambe soo ku helay haddana gabdhuhu intay leeyihiin waa ubax waa buskud waa ninac waa kuwii qalmaha geela laga bixi jiray waa kuwa marka وكوا ولكن إن لا شرفه إحد فير ولكن إن لا شرفه والكستو كهمناي وهو وكوا ددالا سو أبا وناجلا فملكن وناجلا ويدل أو يكليا أو جرو واحد جوكتو شنكرون جيا جوكتو يقرح بدن با جوكتو لكن ما حد جيو ما حد نقطي ما لبضعر له ضلع نقطي جيو ما حد نقطي ننع قلفك أنت لا فير أي تسحيقه يوحكستو كدجان أي نقطي sidaa ma ahayn laakiin wax walba waxa mas'uul ka ah dadkana Soomaaliyeed kuwaasoo viewska u badiya kuwaasoo shareka u badiya commentiga u badiya nimanka noocaas oo kala fiiri inay gabdhaha Soomaaliyeed qaawiyaan inay gabdhaha Soomaaliyeed ay mataqaana noocaan oo kala ay sameeyaan yaa sababay
adigaa sababay tusaale maxaad ku sababtay ma garanaysa laakiin anaa kuu sheegaya adiga caan yaa u taqaanaa waxaad caan u taqaanaa gabadha isqaawisay caan yaa u taqaanaa waxaad u taqaanaa gabadha jirkeeda isku soo dhejisa markay Facebook ama meel soo dhigaan laagtaa suuldhar nab ku siisaa waxaad tiraahdaa waa caan waxaa macquula xataa profilkaaga inaad sawirkeeda saaratay adooda aqoon u lahayn intaas waad ku faanaysaa oo waxaad u haysataa qof qurux badan taa maxay sababaysaa marka in gabar kasta ay isqaawiso si caan u noqoto yaa kaloo caan u taqaanaa kan maanta gabadhaas qaawiyey caan baad u taqaanaa oo waad sheegaysaa waxaad leedahay youtuber hebel waa nin caana waa nin intaasoo views haysto waa nin balaaya ka dhacday markaasuu isboogixina markaad halkan uu gaaro maanta inuu gabadhaan qaawiyey maskaxdaada masoo kusoo dhici kartaa taas wax ka xun inuu sameyn karo haa haddaad kan ku siisay views 100 kun aad ku siisay like far badan ku siisay micnaheedu waxay tahay walaalkayow shaqo fiican aad qabatee hore u sii soco marka soo midba mar usoo qaawinaya adiga i daawanaya ugu dambeyn walaashaa soo qaawina ugu dambeyn too waalidku soo qaawinaya marka waxba kama tiri kartid markaas oo waxaa la yiri maray waranku mar kugu tagay mataqaanaa qabasho malo ama waxaa la yiri biyo intay ku soo gaarnaa la iska moosa laakiin sidee ku moosi karnaa fiiri xataa kan qabiilada caayo kan mataqaanaa dadka isku diro kan mataqaanaa siraha dumarka soo bandhigo intaasoo dhan adiga i daawanayo wuxuu kuu yahay qof faamoos oo caana oo balaaya ka dhacday adeer yaanaan dhiigga isku karinin yaanaan iswada daalin yaanaan xanaaqin waad ogtahay shankaroon qiimaha ay leedahay markay gabar kula dhalatay sida ay kuugu adeegto guri hagaagsan iyo cunto macaan inay abaydaa ku kariso waa garanaysaa markaad gabar dhashana waad garanaysaa naxariisteeda markay ku tiraahdo aabba macaan ay ku tiraahdo halka ku go-ayso waad dareemi kartaa haddaad aabbo tahay hooyo markay ku koolkooliso ama markaad hooyadaa aragto farxadda aad dareemayso waa garan kartaa marka dumar waa shumac in la ilaaliyo u baahan yihiin doqonkaas camal aan ka qabanno aan ka celinno aan sharaftooda dhowrno midda isqaawisana mid xun aan u aqoonsano yaana la taageerin hadday Facebook soo dhigto hadday Instagram soo dhigto meel walba ay soo dhigto laag xasaarinina hana u dhoola cadeynina inaad mataqaanaa tustaan inay xumaan sameynaysa maahan kuweena asturan ee wanaagsan ee gooyooyinka ee quruxda badan leh iyaga aan taageerno anigu magacaygu waa bidhaamiya been masheega baarqa banaanka tegay ma ka xishoo doono doqonkaas camal inaan kabaha la dul maro hadduu gabar Soomaaliyeed sharafteeda meel uga dhaco waxaan idin rajeynayaa inaad igu taageeri doontaan inaan asturno inaan badbaadino sumcadda geeyooyinkeena Soomaaliyeed hablaha Soomaaliyeed waa sharafteen waana ku faanaa waxaan alla ka baryayaa inaad cizi iyo sharaf ku noolaatiin intiina wanaagsan inta xunna waxaan rajeynayaa inuu ilaahay soo hanuuniyo oo kor u soo qaado aad iyo aad idin salaamaya waa baarqabo idin leh habeen wanaagsan afkaygu amaantaada u fududaaye afkayguna amaantaada jacalo